الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. walaalyaal waxaynu ka soo hadlaynay khudbadii wacyigelinta waaqica, waxaynu u soo noqonaynaa inaynu miisaano oo aynu dib u eegno qulubteena. wax badan waxa ku xidhan in waxaynu saxnaadaan ama uu kharibnaado wuxuu ku xidhan yahay qulubta. dadku had iyo jeer saynu ogsoonahay markay jidhkooda danaynayaan muddo markay joogaanba marbay check-up isku sameeyaan ama in qofku isbaadho. meelaha ay dadku aada u daneeyaan ay baadhaan waxaa ka mid a qalbiga iyo wadnaha. qofka haddii wadnihiisa wax laga sheego kolba dhan buu u boodaayo waa wareeraa, inuu khatar ku jirana wuu dareemaa. khatartaasoo kale uu qalbigu leeyahay markuu qaasi noqdo qombabo ee diinta ilaahay iyo dikriga ilaahay uu ka yaraado, darxumaduna way ku badataa, qofkuna wixii xun ma dareemo. idan markaynu baraarujinaynaa waxa weeye qaybtii raqaa'iq haddaynu usoo noqonno iyo inaynu nafteenna dib u eegno. waxaynu ka hadlaynaa mowduuceenu yahay maanta alquluub. sababtaynu uga hadlayna ama xigmadda keentay in laga hadlaa waxa weeye mudnaanta iyo miisaanku leeyahay xubinkeenaas. xubinkaa isaga ah qalbiga ama wadnaha waxa uu ka mid yahay meelaha ugu cajiibsan xubnaha qofka bani aadamka ah, liannahu waa meesha ay nolosha kusoo horeyso kuna dambayso. ilmuhu marka uu joogo 2 usbuuc buu dhaqaaqa bilaabayaa, wuu sii nool yahay oo wuu sii garaacayaa weli qalbigu, iyadoo maskaxdiiba laga yaabo inay dhimatay. qalbigu fiihi alxayaa waa meeshay nolosha ku jirto iyo garaadku. maskaxdun baa la odhan jiray berigii hore caqligu xama garto. qur-aanka kariimkaana ilaahay wuxuu ku xusay 122 aayadood lafdulqalbi buu ku soo arooray, 16 meeloodna lafdulfu-aad. in badan oo ka mida wuxuu nasku tilmaamayaa in garashadu ay tahay qalbiga iyo wadnaha. gadaal bay ogaadeen ummadaha daraaseeya in garashadu qalbigu garasho leeyahay, oo sheegeen inuu hormoonaad sii deynayo iyo dheecaamo rasaa'ilahoo fariimo u diraya jidhka garasho. waxyaabaha aada loogu sii daraaseeyey bay ka mid tahay qofka marka wadnaha laga bedelo ee wadno kale loo geliyo isbeddelka ku dhaca, cawaatifkiisi iyo dareemayaashiisi iyo wuxuu xafidsanaa in wax badan iska bedelaan. markaasay garteen garashadu in lala socoto caqliga, sidaa qur-aankaba ilaahay uu noogu sheegay subxaanahu wa tacaala. xubinkaa isaga ah cajaa'ibkiisay ka mid tahay annahu manaadu takliif, meeshii xilkuba uu ku xidhnaa inuu yahay. hadduu isagu xumaado ama garaadkii qofka ka lumo, xilkii saarnaaba uu ka dhacayaa. waajibkii ummaddu ay kala xisaabtamaysa iyo kii ilaahay uu kala xisaabtamayay. xubinkaa muhiimadiisay ka mid tahay inuu yahay maxallu nadar illaahi subxaanah, jidhkeenna halkuu ilaahay eegayo. waa siduu inoo caddeeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixu muslim. ilaahay ma eego jidhkiinna iyo sawiradiinna, wuxuu eegayaa qalbigiinna iyo camalkiinna. qofkan inuu yahay mid camal xun oo qalbi xun ayaa ilaahay uu eegayaa, iyo inuu qalbigiisa iyo camalkiisu wanaagsan yihi. meeshuu ilaahay kaa eegayaa waa meel mudan in la yska tiiriyo, la yska toosiyo. qalbigu waa aslu salaaxi walfasaad. dadka hagaagaya waa meesha sabab u ah inuu qofka camalkiisu hagaago, qofka camalkiisu xumaanayana meesha sabab u ah weeye. sidaasuu nebigu inoogu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari ku sugnaa. jidhka xubin baa ku sugan buui, alaa intuu dadka baraarujiye kadib buu le jidhka xubin baa ku sugan. hadduu hagaago jidhku wada hagaagaya, hadduu xumaado jidhku waa wada xumaanaya. waa qalbiga wadnuhu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam. muhiimadda iyo miisaanka iyo mudnaantu leeyahay daraaddeed in la ilaawo aanay ahayn waxaa caddaynaya
nabiga dhaarihiisa sala allahu calayhi wasalam iyo ducadiisa qalbiguu ku soo noqnoqon jiray markuu dhaaranayo wuxuu odhan jiray laa wa muqallib alquluub wa muqallibi alquluub waxaasi sidaa ma aha waxaan ku dhaartay ilaaha qalbiga rogroga markuu ducaysanaya nabigu sala allahu calayhi wasalam ducadiisay ka mid ahayd inuu odhan jiray yaa muqallib alquluub habbit qalbii calaa diini ilaaha qalbiga rogrogow qalbigayga diintaada ku sug waa nebi maxamed baa ku ducaysanaya sala allahu calayhi wasalam arrimahaasoo dhan oo uu leeyahy daraaddeed baa muhiim ka dhigtay in mar walba qofkuu dib u eego qalbigiisa ila naftiisa been uma sheego qofku waxaynu markaa u gudbi lahayn oo aada inoo khusaynayaa asbaabun fi talyiini alquluub arrimo markuu qofku sameeyo qalbigiisu uu dabci karo oo qof qalbi qoyan uu noqon karo oo ilaahay uu ku jecel yahay uu raalli ka yahay sababahaas ayaa dawo ka ah qofka in qalbigiisu uu qallafo ama uu qallalo ama uu xumaado sababaha wuxuunaynu ka soo qaadanaynaa adilada qur-aanka iyo xadiidka tay noo darani waxa weeye dhimashada qofkii oo iska nool in qalbigiisii tawafo oo iimaankii iyo diintii iyo alla kacabsigii uu ka dhinto taasaa inoo daran waxaa kow ka ah sababaha tilaawatu kalaam illaahi subxaanah inuu qofku qur-aanka ilaahay la noolaado oo ilaahay uu dhagaysto oo ilaahay uu la faqo oo maalin qura qur-aanka aanu ka qadin taasi inay qalbiga saameynayso dareen weyn ay ku leedahay oo noolaynayso qur-aanka ay noo sheega wuxuu uhi inna fii dalika ladikraa liman kaana lahu qalbun aw alqa asamca wa huwa shahiid wacdigaa faraha badane cajiibkee suuratu lqaaf ilaahay uu ka soo hadlay wuxuu anfacayaa qofka qalbiga hagaagsan leh ee wacdigiiyo waanada usoo jeeda markaa qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa dareenka oo nolosha uu ku sameynaya qur-aanku qalbiga allahu nazla axsana alxadiid kitaaba mutashaabiha mathani takshaciru minhu juluudu aladiina yakshawna rabbahum uma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikri illah qalbigiiyo jidhkii oo kala badbadanaya oo dabcaya oo macaansanaya qur-aanka akhrintiisa ayaa ilaahay uu noo sheegay qalbigii marna uu cabsanayaa marna uu dabcayaa uu naxayaa uu farxayaa waa aayaadka jannada iyo aayaadka cadaabku la jaan qaadaya waxa labaad oo ka mid a waxyaabaha qalbigeenna dabcinaya dikru lmowt inaynaan adduunyadan unu ordin oo aynaan ku buuxsanaanine aynu ogaano maalin maalmaha ka mid a in kabahaaga la dhexlayo oo kutubtaada la dhexlayo oo mafaatiixdaada la qaadanayo oo gaadhigaaga la qaadanayo alla u naxariisagii in la odhan doono dad u soo xaadiri doonaan intaan meydkaaguba kala daadanina waxaaga la dhexli doono nabigu wuxuu leeyay sala allahu calayhi wasalam akiruu dikra haadimi ladaat macaankan yara adduunyada ku haysaan ka kala kicinaya idinka tagsiinayo geeridaa xusuusta marka fikir inteed inaad dhimanayso xusuusataa inteed dardaaran qortaa inteed ku tala gashaa inaad aroortii iyo caawi iyo saacaddan dhiman doonto waa naadir wax inagu yar wey dadku waaba iska durkiyaanba waxyaabaa qalbigaaga dabcin kara wey waxaa ka mid ah asalaatu cala aljanaazati wa tashyiicuhaa wa ziyaaratu lqubuur inaynu dadka dhintay jinaasadooda raacno salaada kula tukanno wakhtiyada qaarkood oon jinaasadiba jirin xabaalaha soo booqan karno waa wax inagu yar jinaasada marka uu qofku reerkooda ay tahay ama saaxiibkii unbuu raacaa mid agtiisa la marinaya aanu eegayn oonu gaarigaba u joojinayn xabaalaha waan idiin diiday buu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam inaad soo booqataan laakiin iminka soo booqda fa innahaa tudakirukum alaakhira aakhira idin xusuusinaysa qof dee aakhiro xusuusanaya waa qof qalbigiisu qoyin waxaa ka mid ah waxyaabaha inoo xusuusinaya qalbiga inoo qoynaya kahratu dikri illaahi subxaanah inaanu ilaahay qowlkaaga iyo qalbigaaga ka maqnayn ood ilaahay xusayso wardigaagu badan yahay intaynu wardinaa inteed ilaahay subxaana wa tacaala carabka ku haysaad bal waxaad ka cajalada iska duub mobaylka intood qaybta recordingka daartay iyo bal hadda maanta waxaad iska duubtaa waxaad daldalaysa intaad soo jeeday intaad huruday mooyaane inteed dikri ilaahay ahayd subxaana wa tacaala ma ragcadaha kooban intaad ku jirtuun baad ilaahay xusaysay mise waqti kalaad ku darta
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قلبي أو كحصلي أو سعادة هي النفس هي النص شكوه لي إلهي حسكيس أي قرآن كنوت المامية قلبي ما أنت ضد بدنا أي كعبنا إنه استرست كل عي وقلب وريرسية هاي وحكدب عناية مشكلة كود العام وحكدب عناية ذكر إلهي بإلهي نحس سبحانه وتعالى وعكم إذا زيارة المرضى ومخالطة الفقراء والمساكين إنه قفكو ضدك بكسر بغضة ودكتور كانوا كبر رجلون مالنتي سجل تشيفيان ورا دكتور وحنا كسي شو مشكلة دنا هاي ست شو ضدك بكسر بغضة كوريه هذا لقاد دكتور هذا كبوغة من مسكح ذا كحن وسنة من جدك كحن وسنة يضرب قد أي ضدك أوهاي استاني هو سيف فقراء دي مساكين تمرك غير كود إن تحتك تولن ولان كرتود إيجي كرتود دحمري كرتود واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا آياتها إلهي النبي محمد بكلها الضياء يعدي كدايا نيسا إلهي وحلا يددك فقراء مساكين تلقى كبري لقى فقادي هذا هو الله العيش مع الفقراء والمساكين إن ددك لنولات قلبي قاعد بعينيس وحكم ذا اللحاد الاعتبار بما جرى وما يجري على المكذبين والأعداء عدو وحا كدعيا كي تجي كتشوجي عصرية وحبضنا الدبيالا كدعة فليذا إنا ترى هذا طلب كان محي وحنا يقول دعاء طلب بلادنا حاجة يقتم سيد الله قال يسير عيد الحمضة كل عيد دين لا وياش قرآن كايل هاي آذو قورما فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد بل أجابوا لهاي أنت وما ضباب باضي ردرات كوده هذا الحيسين وهذا المرينا ونبل هذا الديب أجا وحكم إذا أكلوا الحلال إنه قفكوا حلاش عناه هدو قفكوا حاران عيه دي بابو عنين هدو قلبي سوقيين كحاران توقفكوا استعماله يسيدوا دونا وهو استعماله waxyaabaha qalbiga qallajiye kamidi dad badan oo aynu naxariis la'aantooda la yaabsanahay waxaaran cunka mar hadduu qofku xaaraanta caadaysto cuno ciduu doonaba ha ka qaadee qalbigiisi waa qalalay waxaa ka mid ah at-taqarrubu ila Allah binawafil al-a'mal in ilaahay inuu ugu dhawaano inuu badino amalada sunnaha faralkuna faralka kumitid ha laakiin amal waliba waxa uu leeyahay mid sunnah iyo mid farala salaadu sunnah leedahay soomku sunnu leeyahay sadaqadu sunnah leedahay sunnaha saad kordhinayso aad ku kabaysa waxa kamid ah waxyaabaha ilaahay noo dhaweynaya ama qalbiga inoo qoynaya ilhaahu ducaa billahi subhanahu inaynu ku celcelino ilhaahu ala allah biducaa inaynu ilaahay in badan barino bariyada ilaahay laga daalo dadka laga daala marka waxba ku sii waan laakiin ilaahay uu ku soo wada oo ballan qaaday ud'uuni astajib lakum marka ducada iska badi gelin hore gelin dambe habeenkii salaadaha dabadooda waqtigaad meel iska marayso ducada kordhi waxyaaba qalbiga qooyay kamid waxa kamid ah mujaalasatu ahli ilmi wal iimaan dadka wanaagsan ee aqoonta iyo iimaanka caanka ku aynu qofku ka agdhawaado dadka fiican ee khayr kale inuu qofku la majaaliso ka agdhawaado أو لا فريست ولا صاحبه وحا حديث الباني الركل باي حسن كنت المامين ورينا يا حاكم رحمه الله من حديث ابن عباس نبي يقول صلى الله عليه وسلم أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكروا الله أولياء إلهي وحوي كوا مركا لأركه ذاتك إلهي حسوسين وقف مركا أركته دين النبي قاعد تقول ليس استغفر الله وقاعد أرنيسا واحد وديبات جوتشينيسا آخرات حسوسانيسا إلهي بعد حسوسانيسا قفنا مركز ركتو حلقة يا باينات سياسة دي الدوية فعلتني وحسوساتور بيلكات وراء قف بوحي وصيدا مرايد السوء لنا يا آيات كم عاشي كريس مركز النبي عليه الصلاة والسلام حط المام قفك أنت لا تشوكتو إلهي لجوجاسي وكحسوسينية وأولياء إلهي وحديث صحيحين كسجان النبي قلنا وشجع صلى الله عليه وسلم ملائكة واحد طوافة ينولك ملائكة إلهي مركز صوم مران مال علم إيه الذكر إيه الدين إيه وعد لوهاي وحيرانا ينصاف ريست وتنبادين وربحنتي بإلهي كعليانا وحي إلهي بكل لابت
markaasuu ilaahay leeyahy ka warrama addoomaha ilaahay waxay wadeen tasbiix iyo xamdi iyo tamjiid way ku ammaanayeen markhaati ka ahaada buu ilaahay leeyay dadkaa wanaagga uga markhaati kacdeen inaan ka dhaafay dembigii laakiin waxaa malaa'igta ka midaba hadlaya wuxuu leeyahay waxa se la soo fadhiistay hebel oo cabdun khataa addoon gefo oo dembiile ah lahu xaaja uu muraadunbuu usoo yeeshay qoladaa wan wanaagsan muraad buu usoo yeeshay hadduu doonayo muraad adduunyaba ah markaa dee kaasi kuma jira ee waan kuu sheegay buu leeyay ilaahayna wuxuu leeyahy subxaana hum lqawmu laa yashqaa bihim jaliisuhum kuwaasi waa qolo oo kala fadhiista aanu guuldarraysanayn markaa dadka wanaagsan inaad la fadhiisato ilaahay dembi dhaafkiisaad ku helaysaa awliyada ilaahayna waad ka mid noqonaysaa sidoo kale yubasiruka bicuyuubika wa yumaxisu laka nusx wayadulluka calaa awjuhi naqs qofka wanaagsani waxa uu ku tusayaa dhaliilahaaga wuu kula talinayaa wixii aad ku saxmi lahayd aad ku horumarin lahayd buu kuu sheegayaa ma isticmaalaya waxaa la yidhaha almudaaraatu walmujaamala qofkii oo kula warwareega uuna afka kuu macaaneeya isagoo dhaliishaada arkaya uu kula talinaya walaalow saa iyo saas waa sax saa iyo saana iska daa waayo nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii uu warinaya abi daawuud xasanka ahaa almu'minu mir'aatu lmu'min qofka mu'minkii walaalkiisa kalu muraayad u yahay qofka ceebtaada kuu sheegaa waa qof naasixo adiga kuu daneeyey maaha inuu ku dacaaday maaha inuu ku dhaliilay say dad badani u fahmaan waxaa la yidhaahdo hadduu qofkaasi kuhaa waxa iyo waxaas kuu naseexeeyo isagoon ku fadeexadaynayn waa inaad u ducaysaa waa inaad garataa inuu ku danaynayo qofkaas marka arrimaha tobaneeyada ah ayaa qalbigeenna qoyn kara ilaahay baynu ka baraynaa inuu nawaafajiyo qalbiga waa inaynu aada u danaynaa waa inaad ka raadisaa nolosha talow asbaabta arrimaha uu qalbigu ku noolaadaa ma jiraan mise ma jiraan waa inaad iska baadhaa sidaad u baadhaysa markan kaleba saasaad cibaadada kuugu macaananaysa oo macsiyadu ay kugu qadhaadhaanaysa oo aanu dembigu kuula fududaanayn oo aad dadka ilaahayna ku nabadgelinaysa allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca waarina albaaila baila warzuqna ijtinaaba ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح العباد والبلاد اللهم أصلح العباد والبلاد اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة